hooyo Faadimo Maxamed Shide oo wiilkeedu muddo badan magafa ku haystay dalka Liibiya ayaa fariin u dirtay shacabka reer Somaliland iyo xukuumadaba. Hooyadani Faadimo Maxamed Shide ayaa sheegtay inay wiilkeeda oo muddo dheer ka maqnaa isla markaana aanay ogeyn meel uu jaan iyo cirib dhigay ayaa waxay sheegtay inay ka aragtay ama ka daawatay TV-yada. Hooyadan ayaa markii ay aragtay inankeeda oo dhibaataysan waxa ay sheegtay inay ka gooday cuntadii iyo hurdadiiba. hooyo Faadimo oo arrimahaasi ka hadlaysa ayaa waxa hadaladeedii kamid ahaa waxa la Faadimo Maxamed Yuusuf Shide marka waxaan ka imid geed balaad islaani hooyo jilicsan baan hayay sagaal caruur igu weynaa waxaan daawaday inta tiif damihii baan hayn tiifayga la soo dhigay baan daawaday baatadayga igu weyn wala halkan tiifayda ka daawaday habeenkii ma seexdo dharaartina wax ma cuno dhibaatadaas ay haysataa maradaas aan ku xansheeraa hantideedii waa la iibiyay dhaxla marada iga xidhantay waxa weeyaan fiidiyohan daawaday ayaan qaracmay intaas ii guurtay habeen iyo dhalaal waa ii oohin madaxu uu iska dhaafay waxaan doonay wax la iga qabto saasay dhibtaas ii haysataa inankina halkaas cisho walba la soo garaacaya oo qaaqda ii soo haya waxa la iga qabtaan la walaalayaal in hadii la iga soo saaraan doonaya halka iga soo dhawaaqayo kuwii kale la raro banaan yaala walaalayaal taas ay haysataa hantideedii waa la iibiyay sideed caruur ah imka boosada waa la iga raraya ka guur baa la yiri imka caruurta intaan ka soo maqnaa meelaha socday waxa ku dhacday la fagara muslimkii ilaahay baa u baxay oo qaaday aabood uu xanuunsanaya waa nin xanuunsanaya oo dibad meera oo iska dhibaataysan oo ilaahay mooyaan cid ogeyn saasaan ahay waxaan ka doonayaa dadweynaha waxaan ka doonayaa madaxweynaha Musabbixi inuu gargaaro maxaa dadku go'ay iska cayd dadka miyigu laba saac laba saac waan iibiyay dunyana ma hayo inankina ma hayo arradii aan hadalnay firfirlaana ma hayo cid laana alla dhibtaasan qaba waxaan doonayaa dadweynaha wixii ashahaadanaya la maxamed rasuulullah walaal dhibtaas ay haysata in la isoo gargaar oo ilmaha yeere saaw dhibaataysan la iga soo saaro oo la isoo celiyo ayaan doonayaa walaalayaal yaan ka codsanayaa ummadda islaamka ilaahu iyagana ha ku ridin oo hararin ilmahoogan ilaahu halka ha gelin وعبد السلام محمد بدي بلشة TV قبلي